Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga sharafta badan lasoo dhawaada kusoo dhawaada waa janalkeeni waa ubax cali janal. ciid mubaarak calayna wacalaykum taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal. maanta waxaan sameyneynaa macmacaankii ciidka ayaynu sameyneynaa. waa ciid waxaan jecelahay macmacaan xalwaad iyo alaaba ayaan jecelahay. maanta markaa halkan waxaan ku sameyneynaa macmacaankii ciidka sweetkii ciidka ayaa la sameynayaa. markale waxaan ku leeyahay ciid mubaarak. halkan waxaan ku haystaa maanta maasha allah alaab yar oo kooban ayaan ku haystaa. waxaan ku shubay digsiga ayaan soo qaatay, waxaan ku shubay 3 koob oo biyo ah, koob shaah ayaan ku daray. waxaan ku darayaa 3 koob oo sonkor ah, waa 3 koob oo biyo ah, koob shaah ah, 3 koob oo sonkor ah. 3 koob oo sonkorta waa kiiloogi oo wax yar baa kiiloogi ka hadhay. koobkaan ku qiyaasanayay baa weyn, intaa yar baa ka hadhay aan gacanta ku hayo. waa iska 1 kiilo weeyaan wax yar dhiman. halkana waxaan ku haystaa cornstarch ama geedka xalwada laga sameeyo ayaan halkan ku haystaa. halkaa 1 koob ayaan ku shubtay geedka xalwada laga sameynayay. magaceeda way ii gastay, magaceeda ha la ii soo sheego. koobi abaan ku qasay, intaasaan isku qasayaa maasha allah. halkana waxaa igu jira sonkortii iyo biyihii iyo shaahi madooba ayaa igu jira. aniga dhinaca u soo geliyey xalwada. anigu markii labaadana xalwad sameeyo ii soo sheega hadday sax tahay sida aan u sameeyey. food color maan ku darin, sacfaraanna maan ku darin. sacfaraan baan haystay markii waan ku dari lahaa baanba waayey, dabeetana farahaan baan ka qaaday. food colorkana anigu ma jecli. marka bal ii soo sheega sidaan xalwada u sameeyey. xalwada sidaan u sameeyey balad ii soo sheegana sida saxda tahay. ilaa dhammaadka fiideoga daawo, subscribe-kana inoo saar. subaga imankaba waaba ku daray, in yaroo subagaan ku daray markay soo yara adkaatay. markay saa soo yara adkaatay baan subaga ku daray. subaga maanta ma ku badinayo, waan ku yareynayaa. soo sheeg xalwada haddii aad hore u samaysay adigu sidan inay sax ku tahay iyo inaan maaragtay wax ka qalday. ii soo sheeg, laakiin saasaan anigu ku sameeyey. hadhowtana xalwad fiican baa iiga soo baxday. welina waan baranayaa, markaa waa in la ii soo sheego sida saxda ku tahay. komanka xagga hoose iigu reeg, subscribe-ka iyo like-tana inoo saara, siina share gareeya. hadda lowska waan ku daray, in yara lowsa ayaan hadda ku daray. lowska nooca aad adigu markaa haysato baad ku darsan kartaa, ama sisin waa lagu darsadaa. dadka qaar sinsinna way ku darsadaan, laakiin anigu lows baan ku darsaday. maasha allah, ciidkii xalwad qurux badan ayaa maaragtay iiga soo baxday. adigana tijaabi, haddaad hore u tijaabin sidaa aan u sameeyey u samee. falowda maaragtay fideoga daawo, markaad sameynayso fideoga daawo dabeetana sidaas u samee. waxta saas bay usoo adkaatay. waxaan u maynayaa markii biseelka ay joogtay inaan waqtiga dabka kusii dheereeyey. hadeerba malaha diyaar bay ahayd, laakiin waan kusii dheereeyey ilaa waqtigan sii maaragtay lays fiican isugu adkaatay. marka waan arkay dad markiiba kasoo tuuraya, markay saa u yara adkaatayba kasoo tuuraya. marka next time insha allah aan sameeyo waxaan sameynayaa saas. markay isu yara gashaba waan kasoo tuurayaa. hadda waa diyaar bay tahay, laakiin waan sii waday, weli waan sii wadayey, cabaar baan sii wadayaa. please videoga dhammayso, subscribe-kana inoo saara. dad hore u subscribe gareyna, subscribe-ka waa hal mar oo kaliya. like-tana taabo, suulka sare u jeeda, siina share gare oo walaalo kale la sii wada. sida anigu baan waan ka faa'iideysta iyaguna ay uga faa'iideystaan. intaa videoga ku xiga ku kulmi doonana waa walaashayda waxaa loo idinku leh dad jeclaan istaafin.
27 سنه الراجل هيدي كان في مكان مع المساكين واحد اسمه رضا. رضا ده كان تاجر شمال، لقى